Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hal abuurada iyo daahkarogidda waxyaabaha cusub ee la xiriira dhanka caafimaadka waxay badbaadiyaan malaayiin bashar ah naftooda. Sidoo kale waxay kor u qaadeen awood u lahaanshaha bini'aadamka ee la dagaalanka cudurrada iyo waxyaabaha sababa. Waxaana ka mid ah hindisooyinkaasi fikraddii lagu abuuray waxa maanta loo yaqaan bangiga dhiigga. Waana qaab dhiigga loo xafido ayadoo dhiigga loo kala saaraya qaybihiisa kala duwan isla markaan lagu kaydinayo qaboojiye. Haddaba hindisahan lagu abuuray waxa maanta loo yaqaan bangiga dhiigga waxa iska lahaa dhakhtar Mareykan ah oo lagu magacaabo Charles Drew. Charles waa dhakhtar midow Mareykan ah kuna dhashay sanadkii 1904 magaalada Washington ee caasimadda dalweynaha Mareykanka. Wuxuuna bartay cilmiga caafimaadka asigoo sanadkii 1933 shahaado baaj ah oo dhanka qalliinada ah ka qaatay jaamacadda McGill ee ku taala magaalada Montreal ee dalweynaha Canada. Horeyna wuxuu u soo qaatay shahaado baaj ah oo dhanka jirdhiska ah asigoona inta badan jeclaa inuu jirkiisa dhiso isla markaana sameyn jiray jimicsi joogto ah. Dhalintana ku boorin jiray in ay jirkooda dhisaan oo ay sameeyaan jimicsi joogto ah. Charles ayaa ku soo baxay cilmi baaro ku wanaagsan dhanka dhiigga. Sidoo kale wuxuu ahaa macallin wax ka dhiga jaamacadda Howard ee caafimaadka. Kadibna wuxuu u wareegay magaalada New York asigoona madax ka noqday qaybta dhiigga ee isbitaalka Columbia. Inta uu joogay Charles isbitaalka ayuu dhanka kalena ka mid noqday ardayda jaamacadda Columbia. Wuxuuna maqaallo ka qori jiray culuumta dhiigga la xiriirta. Aakhirkiina wuxuu shahaado PhD ah ka qaatay jaamacadda Columbia. Wuxuuna noqday dhakhtarkii ugu horreeyay ee midow Mareykan ah oo helay shahaado noocan ah. Sidoo kale wuxuu noqday dhakhtarkii midow Mareykan ah oo galay imtixaanka lagu magacaabo guddiga Mareykanka ee dhanka qalliinada. Waxaana u suura gashay Charles inuu saaxiibadii ku qanciyo inay isticmaalaan balaasmaha oo ah qaybta dareeraha ah ee dhiigga kolka ay joogaan aag dagaal ama ay timaado xaalad degdeg ah. Markii uu qarxay dagaalkii labaad ee adduunka, khubarada caafimaadka ee dalweynaha Mareykanka ayaa raadin u galay qaabkii dhiig lagu gaarsiin lahaa dalka Ingiriiska oo xilligaasi dagaal kulul kula jiray Naasiga Jarmalka. Charles ayaa soo bandhigay qorshe sahlan oo dhiig lagu gaarsiin karo saaxada dagaalka. Charles wuxuu u badbaadiyay kumanaan askari oo British ah. Sidoo kale hindisihiisa abuurista bangiga dhiigga wuxuu maalin kasta badbaadiyaa kumanaan ruux oo ku nool dunida daafaheeda. Waa tan maanta Soomaaliya aysan lahayn bangi dhiig oo qofkii dhaawacma loo raadinayo qof kale oo dhiig ugu deeqa. Imisa bukaan oo Soomaaliyeed intii loo raadinayo dhiiggii lagu shubi lahaa geeriyootay. Haddii uu jiri lahaa bangiga dhiigga bukaanno badan way badbaadi lahaayeen. Allah ayaa wax badbaadiyay. Laakiin dadaalku waa muhiim. Si looga baxo xaaladani waa muhiim in la soo celiyo bangiga dhiigga Soomaaliyeed isla markaana la helo dad dhiigooda sadaqaysta. Markii uu Charles ku guuleystay gaarsiinta dhiigga aagga dagaalka ayaa loo magacaabay madaxa bangiga dhiigga ee Laanqeyrta Cas ee dalweynaha Mareykanka. Sidoo kale wuxuu noqday xubin ka tirsan waaxda cilmi baarista qaranka. Waxaa intaa u sii dheereed oo mas'uul looga dhigay qaybta dhiigga ka soo aruurisa ciidanka iyo dadweynaha caadiga ah si dhiiggaasi loogu kaydiyo bangiga dhiigga ee hoos imaada Laanqeyrta Cas. Charles ayaa markii uu isku dubariday hawshaani bangiga dhiigga ka tagay shaqadii Laanqeyrta Cas. wuxuuna macallin ardayda bara qalliinada ka noqday jaamacadda Howard. Charles ayaa la siiyay abaalmarino qaali ah, waxaana ka mid ahaa abaalmarinadaasi mid qaali ah oo la siiyo shakhsiyaadka midowga Mareykanka ah ee xaqiijiyay guulaha mugga leh. Charles ayaa madax u noqday dhakhaatiirta isbitaalka hoos imaada jaamacadda Howard ee lagu magacaabo Friedman. Muddo yar kadibna wuxuu u dallacay jagada agaasimka guud ee isbitaalka. Charles ayaa ku geeriyooday da'da 46 sano jir, waxaana sabab u ahaa dhimashadiisa shil baabuur ka oo si xun ugu dhaawacmay tiktoorka. Halka 3 kale oo dhakhaatiir ah oo saaxiibadii ahaa isla markaana gaariga la saarnaa ayagana uu soo gaaray dhaawac fudud kolkii la dhigay isbitaalkana maalmo yar kadib bogsadeen. Laakiin Dr. Charles ayaa u geeriyooday dhaawacii weynaa ee soo gaaray. Dalka Mareykanka iyo guud ahaan dunida hormartay waxaa maalin kasta ka dhacay shilal gaadiid oo dad badani ku nafwaayaan. Magaca Charles ayaa waaray kadib markii goobo badan loo magacdaray, waxaana ka mid ah xarumahaasi iskuullo, buundooyin iyo qaar ka mid ah goobaha lagu nasto. Sidoo kale waxaa magaciisa lagu soo daray sanadkii 2002 liiska 100 qof ee midow Mareykan ah ee ugu saameynta badan.